Assalaamu calaykum. Waa channelka Wantage Media oo cashiro idinkugu talagalay. Muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sida taleefanka loo qurxiyo screen-kiisa. Okay, touch-ka qabo. Kadibna waxaa kuu soo bixi doonta sida hore u soo aragnayba themes ka soo dooranaysa. Kadib markaa qeybahan dhan ah ogolaatid Samsung themes kana dhahdid add home screen. Kadibna allow gareysid qaybta oo permission-ka. Kadib marka waxaan sameynaynaa marka hadda themes-ka joogtaa waxaa u baahan tahay marka inaad download gareysatid mid ka mid ah kalarada meesha ku jira ama wallpaper-rada waxay kala leeyihiin marka top way kala leeyihiin. Box-kaas markaad dooratid waxaa arkaysaa wax alaal wixii meesha ku jiray oo wallpapers ah. Wallpapers-kan meel walba way bedelmaysaa oo taleefanka ka mid ah way wada bedelmayaan. Setting ka ahaado, notification-ka qaybta kore, notification bar ka ahaado, qayb walba categories oo leeyahay oo adoo ka dooran kara waxyaabaha oo color kala, waxyaabaha nature-ka, waxyaabaha technology-ga, waxyaabaha artist-ka, sports-ka, airplane-ka, travel-ka, waxyaabahaas adoo ka dooran kara. Marka qaybihiisa aad ay u fara badan yihiin. Intaas kuna xabaana ku jirta adigoo flowers ama fiyoore waxaad rabtaa ka dooran kartaa kalar walba oo qurxoon ay kalar ku qanciyo waa ka dooran kartaa. Marka anaad waxaan search gareynaa overlap themes-kan kalarkan la dhaho overlap-kana marka search gareeyay. Overlap-ka marka waxaan ku sameynaa overlap-ka aniga inta badan waan jecelahay oo waan ka helay dooqeyga waaye. Overlap-ka hadda waa download gareysanaynaa marka. Okay, inta download gareynta dul qaado. Bismillah. Okay, in adeerow download garey sample. Okay, marka haddii marka waxaan kuu sheegayaa marka inta aadan soo gelin meeshan taleefankaaga haddii uusan ku xirneen Samsung account wuxuu ku weydiin doonaa in aad Samsung account aad samaysatid. Samsung account-kana waxaan ka diyaariyay cashir cusub. cashir horey oo waan ka diyaariyay. Marka linkigiisa waxaan ku dhigaa description-ka adiga oo flaart hoos taaban doona kadibna tixraaci doona muuqaalkaas sida ugu fudud aad ku sameysan karto Samsung account-ka. Marka Samsung account-kaas aad samaysatid taleefankana Samsung account-ka aad ku xiratid wuxuu ku ogolaanaa inaad isticmaashid waxyaabaha ay shirkadda Samsung ay leedahay inaad gadatid ama aad download gareysatid ama aad isticmaashid. Waxyaabo badan waaye oo Galaxy app la dhaho oo Play Store camal ah oo laga dukaameysto oo application-ka rabta aad ka helaysid. Waxaana iska leh shirkadda Samsung oo qura. Waxaad garateen maahan. Okay, linkigiisa marka videoga description-ka idin dhigayaa. Ka daawada marka linkigaas tixraaca muuqaalkaas daawada oo Samsung account-ka sida loo sameeyay ah. Waana si fudud sameysta kadibna Samsung themes-kan sameysta oo download gareysta si taleefankiina oo u qurux badnaado. Okay, hadda download gareynta wuu noo dhameeyay. Waxaan sameynaynaa marka hadda completing download aan mareynaa meelaha isbedelayna waan ku sheegay waa lock screen-ka, touch-ka screen-ka taleefanka uu leeyahay, apps-ka ku dhex jira icons-ka waxaas dhan way isbedelaan. Kadib waxaa leedahay apply, kadibna waxaa leedahay apply contain. Okay, hadda marka overlap waxaa ku sameynaysaa applying tape. Okay, uu kugu apply gareysmay taleefanka hadda wuu isbedelay. Icons-kana sidaan noqdeen. Kor markii la soo dejiyo oo notification bar-kana sidaan noqonaysa ayadana. halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeeni. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.